آيات 13 سورة الحجرات waxay ka hadlaysaa in bini aadamka Ilaahay ka abuuray lab iyo dhadig kana dhigay qurumo iyo qabaa'il si ay isugu gartaan kan Ilaahay agtiisa ugu karaamada badan uu yahay kan ugu taqwada badan aayadaasi waa aayad aad loo soo daliishado bini aadamka oo dhan muslim iyo gaal cadaan iyo madow carab iyo cajam markii laga hadlayo sinaanta bini aadamka iyo inaan dhalasho lagu kala sarreyn laakiin Soomaaliya haddii aan nahay waxa kaliya oo aan ka fahnay ayaa ah kelimada litacaarafu inaad isku garataan waa kelimad inta badan ay dadku qiil ugu bixiyaan qabyaalada tusaale ahaan markii qofku uu doonayo inuu ka hadlo wax qabyaalad ku saabsan uuna qiyaasiyo inay yihiin wax ceeba waxaas oo laga yaabo in laga yaabo ayuu daliishadaa oo yiraahdaa qabiilku waa litacaarafu wax dhibo ma leh reer hebel waa saas Soomaaliya haddii aan nahay qabyaalada waa nala ku yaqaanaa laakiin qabyaalada qiil loo baxsho oo aayad loo daliishado waa wax cusub waana wax waayaan aad u soo batay xataa dadka caamada ah dhexdooda haddaba litacaarafu maxaa laga jeedaa maxaa laga wadaa litacaarafu waxa aan u fahnay in laga wado inaad isku garataan midka laandheeraha iyo midka laangaabka ah kan dadkiisu hubaysan yihiin iyo kan aan dadkiisu hubaysnayn kan bilista iyo kan boonta lagu sheegay kan cadaawada soo jireenka idinka dhaxayso iyo kan kale litacaarafu waxaan u fahnay in laga wado inaad isku garataan kan awowgiis dilay iyo kan kale kan dakanada hore idinka dhaxayso iyo midka kale laga yaabo dadka qaar inay u fahmeen litacaarafu in lagu garto midka baarlamaanka kuraas badan ku leh iyo kan kale kan foorta iyo kan 0.5 ah kan aarsan kara iyo kan loomooyaanka lagu sheegay haddaba maxaa lagala jeedaa litacaarafu ama inaad isku garataan waan u geli doonaa waxa ay culimmadu ka yidhaahdeen laakiin arrinta cajiibka ah ayaa ah maxaan ku jecelnahay keliya erayga ah litacaarafu waxaanan u doonaynaa inaan aayadda hore ka soo bilowno ama aanba hore u sii wadno oo ka hadalno waxa ay aayaddu ka hadlayso oo ah karaamada iyo taqwada ama maxaanan hore ugu sii wadin oo aayadda ku sii xigta aanan u akhrin aayaddaas oo ka hadlaysa dad reer baadiye ah oo iimaan sheegta laakiin la yidhi iimaanku qalbigiisa ma uusan gelin ka fikir bartaas dad reer baadiye ah oo iimaan sheegtay laakiin iimaanku uusan qalbiga gelin oo lagu yidhi mu'miniin ma tihiin maxaanan u doonayn inaan hal tilaabo gadaal u baxno oo aayadda ka horraysa ka soo bilaabno aayaddaas oo ka hadlaysa xumaanta tuhmada sidoo kale ka hadlaysa inaan qofka aabihiisa la baarbaarin aayaddaas oo ka hadlaysa xanta oo annaga agteena caadi ka ah lana ogyahay xantu in ay tahay qofku wax uu dhibsanayo oo aad ka sheegto ha joogo ama yuusa joogin ha maqlo ama yuusa maqlin qofka oo muuqaalkiisa wax laga sheego ama sifooyinkiisa wax laga sheego xifaalada dacaayadda oo aayaddu ay leedahay xantu waxa ay lamid tahay adiga oo qofka walaalka ah oo dhintay hilibkiisa cunay ka waran sida aan litacaarafu ugu soo celcelinno haddii aan ugu soo celcelinno aayadda kasii dambaysa ee 11 oo ka hadlaysa in aan laisliidin qoomna inuusa qoom liidin dumarna dumar liidin arrintaas oo ah lidka waxyaabaha aan u daliishano litacaarafu kana laandheer ah kana laandheer ah kana boon ah kana bilis ah aan wax caddayna loo hayn kana qalad ah kana sheegato ah aayadda waxa ay ka hadlaysaa oo kale in lays aabayo in lays dhaleecayo waxa kale ay ka hadlaysaa waxa ugu daran oo Soomaalidu ay caanka ku tahay taas oo ah naanaysiyaha xun mana u malaynayo inay jirto adduunka cid nooga horeysa dhanka naanaysiyaha xun aayadda waxay ku tilmaamaysaa naanaysiyaha xun fisqi iyo dulmi haddii aan rabno tilaabo gadan waa usii qaadi karnaa oo aayadda 10 waxay ka hadlaysaa in dadka islaax la dhex dhigo laakiin annaga islaaxa waxaa noogu fudud in laysku diro dadka aayadda waxay ka hadlaysaa in muuminiinta dhamme ay yihiin walaalo laakiin oo aayado isdaba yaalla oo ah amar iyo nahy waxa aan kala baxnay litacaarafu haddaba maxaa lagala jeedaa litacaarafu inaad isku garataan maxaa la isu garanayaa haddii aan laisu garanayn waxyaabihii hore aan u soo sheegnay waxaa laisu baranayaa in lais xiriiriyo qaraabada iyo raximka inaad isku garataan cidda aad isguursi kartaan iyo cidda aadna isguursi karin cidda aad isdhexli kartaan iyo cidda aadna isdhexli karin cidda diyadaada qaadanaysa iyo cidda kale in abtirsiinada iyo nasabka la ilaaliyo in wax laysku daro aan waxba laisugu dhibin laakiin Soomaalidu waxa ay dhahdaa qof meel uu caddahay meeli ka madow qof xumaan uu caddahay wanaag ma arkayo